السلام عليكم وسلامتي دمان waxyar waxaan rabaa inaan ka gaarsiiyo maxal dhaxaa kulamadii shalay falanqeyntooda inkastoo waxyaabo badan aan soo qorqoraay haddana waxaan rabaa si video ahaan maqali muuqaal inaan isku fahanno maqali adduunka casriga gaaray maqali muuqaalka dadka aad wax ugu fahmay og yihiin marka waxaan rabaa waxoogaa yar kula labadii Manchester inaan ka hadlo Liverpool maanta ku daro maxal lahaa kulamadaas Chelsea koobkay qaatay controversialka laga keenay ka hadlo Real Madrid xalay eber gasho wax badan oo la sheegay mal Bayern Munich waa la tumay wax yar iyo ogolaada ila falanqaynta ra'yigayga in la wadaago kulamadii maanta ilaa ay shalay aan ka bilaawno Manchester United sababaha horta marka hore hala yaabin sababaha mar walba Manchester United looga hadlo Manchester United sababta looga hadlaa waxay tahay team kasto oo team weyn ahaan jiray oo xaalad fiican ku jiray oo title-lada ugu sareeyay qaaday horyaalka haddii xaaladdu ku xumaato headline ku saarnaana ilaa headline ku ka tagay uu normal iska noqdo iska suga in nigala sheekeen waa martiin marka biyo caadi noqotiin oo 15 sano waxaan caadi in la noqoto oo Everton oo kale iska noqoto Everton waa ay kacsaneed iyo kuwan ka sheekeen Nottingham Forest amal iska noqotid yaaba warkaaga sheegayba yaa buuqaaga yaaba galaayba marka waxa ogaatiin isbedel jira oo ah waqtiga ah waxa lagu haystaa isbedelkaay wixii laga filin jiray waxaan heelaa taagta marka heelaan ka saaran tahay tusaale teamka kale xaaladdu ku xuntahay ma la dhaafo laakiin waxyaabaha idinka u baranay in sheegaa Liverpool oo kale game laga raayay maalin walba way badan hal game la soo dhaxgalay Man City kale maalin kasta way badan hal game ka soo dhaxgalay sheeshayidooda micno ma leh kii laga badiyay waa daaweynayaan isla markii mid kale ku qaboojinayaan adiga 7 game suuxiga bareejo gashay yaa ku dhaafay kuleetiga laga laalaada marka la soco criticism-ka mar walbo kuleetiga lagu dhigaa hada ciyaaro badan bareejo gashay Manchester United ciyaarteeda marka daawatid waxyaabo badan aa ka khaldan waxa aad ugu mahad celinayaa khabiirka weyn saaxiibkay Mawlid Xaaji oo falanqeyntiisa daayay soo share gareeyay ku sheegay cilada Manchester jirta 100% 1 million % waa ku raacsanahay waa nin khabiir ah qaabku inuu sheegay waa maamulka laga haysta Manchester United waxyaabo badan oo aan iskeenayna jira waxa kamid ah Allahu musta'an maamulka macalinkan maxaa la yiraahdaa temporary la qoraayo Cristiano Ronaldo qaadashadiisii qaabka loo maamulayo waxyaabo badan superiority wax la dhahaa jira ciyaartoy sanka taagaysa kala dambeyn ma jirto marka isaga inii soo koobay Mawlida inii soo koobay waana ku raacsanahay ra'yigaas waxyaabaha ka khaldan maamulka waay hadda already video ga hadda 3 daqiiqo sii socdaa lama rabo dadka inay video ku caajisaan marka video inay dadku caajisaan ma rabi video ga Manchester ku dhameynaya raali ahaada video kala soo sameynaya Chelsea iyo Liverpool iyo Man City video kala soo sameynaya reer duudaya kan ku dhameynayna maxaa hadii kala saga 12 daqiiqo dheelay labada bari adduunka technology umra 2022 waa 12 daqiiqo wax ka dhageysanaya male 16 second adduunka hadda maraya 18 second marka raali ahaada waqtiina anaga dhumiyo rabi Manchester United cilada haysato waa maamulka Mawlid waa ku raacay absolutely ka soo dhageystay videos page-ka ku jira maxaa ku soo haray dhinaca kale marka maamulka laga soo tago waxaa jira neefta ku yar Manchester squad-ka hadda joogo neefta ku yar marka macalinka maxaa laga rabaa neefta markay kugu yar tahay oo qaybta dambe aad dheeli karin qaybta hore le waxdar dhigaysiin 3 gool aad sigaysiin Portero Ronaldo gool la cunaysiin qaybta hore Burnley gool la nigala diiday gool la cunteen كابي دبل صابرته عبد على ذراع موسى دبل كان ليها هي هل هو بدله ما يقدر فوالي يصف في رادي اللي بدله يا توي او محلي هذا ايش قاعد المحل تعبان ربينو سيدير marka Manchester United ciladeedu waa badan yihiin qaybta dambe ma dheeli karaan waa la isku raacay qaybta dambe hadaa dheeli karin macalinka waxa laga rabaa qaybta dambe inuu dheelo maxaa wuxuu sameyn karaa qayb dambe uu dheeli karaa weydiin kartaa shabaab wuxuu sameyn karaa bogbo kale fadhiisi kaarkaaga ha wada dheelin turubkaaga ha wada dheelin yakii ugu dambeeya tuuranin bogbo fadhiisi ciyaartu wax ka bedel waa imaado oo iswaaga sameeyo waxoogaa bloodigiis labadan bari uu fiicay uu dabool la uu dagaalamaya inkastoo wali la boobayo asaga yarkaas booba iskaga socdo ilaa horyaalka uu ka tagay leeyahay qof dhaafayo male booba iskaga socdo marka bogbo isagoo la boobayo uu fiicay hadana Bruno iyo Pogba mid reebo ko Ronaldo laftigiisa bilaash uu ka toro ugu degdegaya 65 taas ka soo galo 25 daqiiqo hal cross uu sii kara labada cross waa hela neeftu meel walba ku dhameena meel walba inuu joogo rabaa
waxaa kaaga daran gool waxaa arkay kaambida qosol ay ugu dileen oo reer magaalo Ronaldo Bruyne offside 3 ciyaarta ku jiro arkay oo geesku ka soo galay dhag wuxuu siiyay Pogba dhaliyay waa laga diiday arbitra uma tagaayay kan Pogba dhaliyay arbitra intuu tago ma no fiirisid offside ma dhahayo asaga offside weyn ayagoo 7 qof ku jiro uu dhaliyo arbitra uu guleedu ku dhagay maxaa ka wadaasan ma fiirisid miya aniga qayb daba gudahay halka la igu sii daawa ku bariya Lucas Shaw meesh ku jira buuq laga sanja ma taaban ana ka og ma ku dhaarta hadda ma ku dhaarta u leed ninki Ronaldo buuqaasa ka soo haray offside live or way loo sii daay Manchester oo lixa ku jirto ma yeelay ala kul marka videogan reer dudaa ugu talagalay yarkii Lucas Shaw asagana waxa lagu haystaa lambar 3 asagoo anigu weerarkiisa waa jecel Lucas Shaw player taageero waay top waay asagoo 3 oo offside ku haraa ceeb waay adoo 3 ina offside ku harta Afrikada xataa hadda waay hore ku haray jirna hadda 3ga ma ku haraay Afrika xataa marka Lucas Shaw asagoo weerarkiisa fiican yahay oo Bruyne-giisaas u masaajeenayo haddana ku haro ceeb waay labada gameba isaga offside ku haray Burnley na offside ku haray kana asaga offside ku haray Maguire asagana waa isku qasan yahay haddana cilada Maguire miya tacticada miya ma fahmin too much u dadaalaya qaladaad badan hadda Bruyne uu dambeeyo karo ku eedeena meesha ku soo dhacayo garan waaye kubaddu iska daba raacay kubadda meesha ku soo dhacday waa laga soo qaatay confuse ku jira isaga laftigiisa kabtanimada laga siibo waxa aaminsanahay ciyaartooyda caadiga laga dhigo maalmo la bench la dhigo ciyaartooy confuse waa kari kara laakiin asalaj asaga ahaan aniga aqoontiisa waa ku qanacsanaa Maguire top defender waa aniga ahaan ra'yigeyga tacticadii waxba leenka khaldan Lucas Shaw iskaga haraayay yarkan Dalot wuxuu dheelay xataa maleeqan Dalot ma laha pilot ko Portugiis ko iska galaayay wuxuu dheelay xataa la meeqan McTominay asaga waxna ka qasan marka Manchester cilada maamulka aniga qasan maamulka teamka qasaaya lambar 2 macalinkaana teamka ka weyn waxoogaa yar waxa la rabaa maalintii Burnley waxay soo kaambi dambe dheeraan maanta kaambi dambe dheeraan ciyaar soo socoto aniga laba qof kaambi dambe u dhigaaba kuwa kala ku soo galaa hadii qalqaliyo aniga maxaan u fadhiis la fadhiis Pogba Ronaldo aan lahaa saanana warniyo kama bixi kartiin baasha hadda garoonka ma tagaysin jooga ana go'aan ka qaat marka geesinimo ay u baahan tahay geesinimadana ma sameyn karo macallin temporary time la siiyay macallin waqti yar la siiyay kadibna iska baxlay ma sameyn karo marka cilada ugu weyn ee jirto waxa way maamulka oo macallin temporary keentay mana soconayso Manchester United video ku soo gabagabay halaa kadib Zaid waaye falanqeynta Mawlid aad soo dhageysta maamulka khaldan tabardari way jirtaa caalamiintu way jirtaa wax dhow isku qadsan yihiin hatta dagay yarkii ilaahay ala wareysana doorad wuxuu dhahay Isbaanish ku daldalmay wuxuu dhahay nacladan ugu socota Kars miya mas habaar aan loo bedel karaa habaar maalna Soomaali mis naclad aan ugu socto waana la habaaro yaa kula meelaha ka ana yaa ku habaara qaab khatib Britain safe ku jira maatan marmar safe kana labadan bir ku caawinaya moogiyo xaaladan Zaid uu xunto u dhahay marka video xigo Chelsea iyo maxaa la yiraahdaa Manchester iyo kullu waa ka soo hadlaya peace